mudan madaxweyne kusoo dhawow TV-ga iyo idaacadda VOA ee London dhawaan waxaa ku dhawaaqday xisbi isbahaysiga dhowr xisbi oo kalena ay ku jiraan muxuu yahay ujeedka ku dhawaaqista xisbigaas xisbiga dalka dabcan waad ogtahay anagu 2010 aan xisbi sameynay barigaas xisbiyo badan sameysmay dalka ka sameysmay laakiin xisbiyadaas waxay u sameysmeen si oo aan يعني meel banaanay ka sameysmeen oo shuruucdii iyo wixii ma jirin laakiin maanta sharciga xisbiyada dalka ka jiro siyaasadda dawladdu waxay qaadatay xisbiyadu inay shaqeeyaan siyaasadda xisbiya lagu galo marka annaguna xisbiyadaas dalka ka dhismaan ka midnahay dhowr iyo 20 aan naga horeysay oo horteen dhisantay haddaan annaguna bilownay maadaama ay cayaarta siyaasadda hadda ay u bedelantay xisbiyo nin walba weelka wax ku shubalaha la yimid marka xisbigeena saas ku salaysan yahay wax gaar oo asaga u gaar u qabo ma jirto marka dad badan waxay u arkeen in ololihii doorashada 2020 aad bilowdeen rajo intee la eega ka qabtaa marka la gaaro 2020 inaad isu soo sharaxdo ama xisbigaagu uu noqdo xisbi xaakim ma horta ololihii doorashada bilowday ma sax ma ahan leena doorashada wali ma dhawa 2 sano ka dhiman qof 2 sano ololo wadi karana sidiisa ma jiro laakiin sameynta xisbiyadu ololaha kamid ma ku Falastiin waa ku sheegay 20 xisbiya sameysatay ololo ma ahayn xasan shamadka oday ka yahay markuu sameysay muxuu ololo u noqday waa su'aal ay dhalisay in la isweydiiyo u baahan taas waa qaybta kale tan doorashada 2020 anaga xisbigan sameynay haykalka structure-ka wali wax badan aan nooga dhiman marka structure-kaas uu dhameystirmo oo xisbiga uu noqdo xisbi wax walba u dhan yihiin oo gobolada iyo jamhuuriyadda dhan jooga diasporada jira meel walba jira then decision-ka ayaa xisbiga magaciisa ku cararaya markaas uu soo baxay hadii la yiraahdo dalka muddo ka maqneed marka hadda ku laabatay sanad iyo dhowr bilood ka maqneed maxaa isbedel oo aad dareentay aniga dalka طبعا Soomaaliya dawladda sida Soomaaliya waxay soo bilaabatay mar hore process socdo waaye processkaasina hoos u dhac iyo kor u kacba waa leeyahay meelo badan oo hoos u dhac aan ka dareemay way jiraan meelo badan oo kor u kac ka dareemana waa jiraan maxaa kamid ah meelaha aad hoos u dhac istirwaa arrimaha amniga sida ay u socdaan iyo institutionska amniga iyo ciidamada iyo waxaan isleeyahay sidan si ka fiican loo sameyn kara amni jirtay waa igu jirtaa laakiin dadka mas'uuliyiinta ay dalka taladiisa hayay una sida uu arkay arrimaha kale dawladdu inay revenue-geeda kor u qaaday oo maxaan ku iraahday ay waxaysan waa meelaha waxay ka mid tahay horumarka laga sameeyay dhaqaalaha xaqiisa qaasatan dakhliga dawladda kor loo qaaday marka processkaas socdo oo wadadaas dheer oo safarka caqabadana way leedahay godad waa leedahay meelo taagma waa leedahay laakiin overall aniga nin waxaan qof mar walba optimista ama qof walba rajo fiican qabo oo waxa fiican arka inta badan dalku inuu hagaagayaan arka rajadiisuna ay mustaqbalka fog ay fiican tahay waxa tahay madaxweynihii soo dhisay inta badan marka Puntland laga reebo maamul goboleedyada hadda wadanka ka jira maamul goboleedyada iyo dawladda federaalkana waa ogtaa meeshay kala joogaan oo wax xiriir hadda ma lahan oo xiriirku waa ku isku jiray maxaa isleedahay arrimahaasi way keeneen والعلاقاتك مع دولة قبلية iyo dawladda federaalka hadda ka dhaxay wuxuu kamid yahay meelaha aan isleeyahay sida loo sameeyay sida loo xalliyo ama loo wajahay si ka duwan oo karoon ama loo wajihi kara ay ugu jirtay kamid tahay dawladda dabcan dhexe ayaa laga rabaa maamuladan waa dalka qaybihiisa kala duwanaayo dhan dawladda ayada laga rabaa in isku hayso dadka iyo kalsoonida la soo celiyo oo la waxeeyo mana u arko in horumar badan oo waliba khaasatan dhinaca siyaasadda ah la gaari karo haddii wada shaqayn dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyadu aanay jirin marka arrintaasi waxay leedahay dareenkeeday leedahay waana rajaynaya madaxdu inay ku mashquulsan tahay in muxuu ay xallisanto markii lagu doortay ugu horeysay waraysiga ugu horeeyay VOA waxaad ku sheegtay in arrimaha ammaanka ah xooga saari doonto waxyaabo badan oo ammaanka laga qabtay waxyaabo aan laga qaban intaba waa ay jireen maanta meesha uu joogo markaa fiiriso madaxweynihii ka dambeeyay dabcan ballantaas uu qaaday maxaa kamid ah caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan in amniga gaar ahaan caasimadda la sugo al-shabaabna laga adkaado horta caasimaddu jasiirad yar oo badweyn ku dhex taala ma ahna dalkii ku dhex taala amniga caasimaduna wuxuu ku xiran yahay amniga meelo kale badan مثلا
way adag tahay amniga caasimadda in la sugo inta labada shabeelle oo maxaanku irahdaa caasimadda ku xiran amnigooda uu xun yahay ama nimanka shabaab ay joogaan. marka aniga waxaan isleeyahay horta dee amniga caasimadda waa priority waayahay, laakiin amnigaas guud uu ka mid yahay. xaaladda ciidankii nabadgelyada amniga oo ama xoogga dalka soomaaliyeed ha ahaadaan ama nabad sugidda ha ahaadaan, yani xaaladda maanta ay ku sugan yihiin iyo isbedelada qaar ka dhacayo ama ka socda, yaan isleeyahay in ay maanta ay tahay caqabad weyn oo horumar deg deg ah in la sameeyo ku noqonayso. isbedel kastaa dabcan waqtigiisuu qaataa, waayihiisuu leeyahay. waxa ka dambeeya iyo xigmada ka dambeysa runtii aniga ma ogi, laakiin dowladda ayadaa og oo dee go-aanada ayadaa gaartay. laakiin militariga iyo nabad sugidda xaaladooda sida hadda ay tahay, waxaan isleeyahay waxay qeyb ka tahay caqabadaha amnigu inuu horumaro ka waxaysmayo. dabcan amisom sideeda waa sidoo kale. marka waxaan isleeyahay waxyaabo badan oo sida ay yihiin si dhaanta loo qaban karay oo amniga ku saabsan iyo qaab dhismeedka ciidamada amniga jira. intii aada maqnayd waxaa isbedel uu ka dhacay gobolka gaar ahaan dalka Ethiopia. isbedelkaasi waxa uu keenay in xiriirka Ethiopia Eritrea oo wanaagsanaado. Djibouti waxoogaa yar inay ka dirday sida qaabka wax u socdaan, laakiin iyadana wada hadallada ay ku soo biirto. sidee u aragtaa wada hadallada gobolka? aniga aada iyo aada horumar weyn oo wanaagsan aan u arkaa. bas waxaa muhiima leh in maxaanku irahdaa si fair ah waxa samaysmaya u samaysmaan. annaga berigaan joognay aadaan uga shaqeynay arrimaha ku saabsan integrationka gobolka inuu dhaco, dhinaca dhaqaalaha weliba inuu integrationka ka dhaco, laga bilaabo dhaqaalaha. hadduu dee beri horumar si fiican intuu sameeya politikadan laga gaari karo waa halkeed, laakiin hadda horta ma sahlana in siyaasadda laga midoobo ama laakiin dhaqaalaha waxaan isleeyahay wax badan laga qaban karaa. dalalkuna dee dal kasta shu-uuntiisa gaarka u qabaa. waan rajaynaynaa in dalalka gobolka geeska afrika ku yaalo dhan ay deganaanshiya helaan, sidaas dal kasta maslaxadiisana ku jirto, soomaaliyana maslaxadeeda ku jirto gobolku inuu degan yahay. oo marka aniga waxaan qabaa waa tallaabo fiican. dowladeenuna hadda de waa ku mashquulsan tahay, waa arrimaha wanaagsan oo dowladdu ay qabanaysay kamid yihiin. waana ila quman tahay aniga in laga shaqeeya arrimahaas integrationka ama wadajirka dhaqaalaha ku saabsan sidii loo sameyn lahay, laakiin si uun maxaa xikmadaysan oo qolo walba maslaxadeeda la ilaalinayo waa inuu ku samaysmaaye in xoogaa lees riixo waa laga fiican yahay. dadka siyaasadda gobolka fiiriya waxay u arkaan in isbedelada dhacay ay yihiin isbedelo xiriir la lahaa waxa ka socday bariga dhexe, gaar ahaana xiriirka Sacuudiga, Imaaraadka iyo dowladda yar ee Qatar. marka aad fiiriso isbedelada iyaga laftirkooda ka jira wadamada khaliijka, saameyn ku yeesha siyaasadda Soomaaliya oo ha noqotay Qatar iyo Imaaraadka, labaduba waa laba dal oo siyaasadda Soomaaliya iyo madaxda soo martaba adiga ka mid tahay aad ay isugu dhawaayeen. haddii ayaga aysan la imaan xiriir xumadoodina ay keentay isbedelka intaas la eg, saameyn intee la eg siyaasadda Soomaaliya ku yeelan kartaa? ma garanayo runtii isbedelka geeska afrika ka socdaahi inay ayaga sabab u yihiin iyo inuu siyaabo kale ku yimiday. dowladda Soomaaliya iyo dalka Soomaaliya dee dalka ugu nugul oo gees gobolka ku yaalay ka mid yihiin. sida ay Soomaaliya u khuseysona arrinta khaliijka dalalka kale inay u khuseyso u malayn maayo. isbedelada Ethiopia ka dhacay, Ethiopia ayday ka yimaadeen muddo soo karsamay isbedelkeeda dhacay. dalalka kalena isbedel weyn hadda kama aragno, laakiin Soomaaliya way taabanaya. Soomaaliya hadda isbedel weyn oo hadda ka dhacay oo arrintaas ku saabsan ma jiro, laakiin walwal waa jiraa. aniga waxaan qabaa dowladdu inay cayaari kartay Soomaaliya door ah in Soomaaliya, laana Soomaaliya waa wada baahan tahay kulli. Imaaradan u baahannahay, Sacuudigan u baahannahay, Qataran u baahannahay, Turkiga iskaba dhaaf baasan aadan ugu baahannahay. marka inaan isku hayno oo aan dhammaantood cilaaqaad wanaagsan la yeelano sida horta ugu fiican ay ahayd. haddiise ay dhici weydo haddana de dadku isku ra'yimaado mitirada wax lagu cabira waa lagu kala duwan yahay. de ma garanayo dowladdu sida ay wax u cabirtay. haddii adiga ahaan lahayd madaxweynaha Soomaaliya xilligaas, maxaad ka sameyn lahayd khilaafkii Imaaraadka iyo u dhexeeyay Qatar? horta khilaafka Imaaraad iyo Qatar u dhexeeya annaga wax weyn oo ka sameyn karna ma jirin. wax bilowday hadda bilaabay ma aha, wax soo jireen oo ahay. laakiin annaga labadaba laba dalo walaala waa inaan labadaba aan cilaaqaad wanaagsan la lahaano way fiicnaan lahayd. wixii aniga hadda kuma dhex jiro oo caqabadaha ka hor yimiday dowladda ama ku kalifay in ay dhinac ay aado. arrinta ku saabsan dowladda inay meel dhexaad joogto neutral tahay sheegtay.
dagaalka meeshaas ka socday neutralnimo ma lahayn leanna dalalku qaybo dhammaandisay qabeen qaybtaa dhammaandiskiisii aada yeesho maxaa ma la dhihi karo marka qaybta kale lakin aniga waxaan qabay siyaasadaha qaarkood wixii ka dhacay muqdisho qaarkeed diyaaradii imaaraadka lacagihii imaaraadka iyo oraahyo ama statements la sameynayo oo positions dowladda ay qaadanaysay iyo ayaga kuwa ay qaadanayeen lafsadooda oo marka qaarkood lafsadooda provocation ama ahay yani xoogaa xadanta siyaasadeed ama sensitivity abuurayay waxaas in la manage garay suurtagal inay aheedaan qabaa haddiiba ay dhaceenna maanta waxaa laga yaabaa in weli la xali karo laakiin maanta waxaa laga yaabaa inay u baahan tahay dhiiranaan badan inay u baahan tahay mowqifyo adag qaarkood in la qaatay inay u baahan tahay laakiin aniga mowqifkayga waxa waaye dalalkan waa u wada baahannahay kulligood sacuudi iyo imaaraad aadan ugu baahannahay dalka turkiga xiriir dhow la leeyahay soomaaliya marka la fiiriyo wadamada kale howlo badanna waa ay ka fuliyeen dowladdu toddobaadkan waxay soo saartay war-saxaafadeed ay ku taageereyso dowladda sacuudiga oo ay isku khilaafsan yihiin arinta ku saabsan wariyihii jamaal qasooji sidee u aragtaa mowqifka dowladda ay ka qaadato arrintaas wal aniga ma garanayo horta waxda ku kalifaya inay mowqifkaas qaadato dowladda lianna sacuudi iyo turkiya ayagaaba wada hadloohayo oo collaboration wada sameeyohayo oo ciidamadooda amniga saraakiishooda isku keena dembiga hala wada baara dhahayo oo wada socdo marka aniga ma garanayo waxaa ku kalifay dowladdeena inay mowqif qaadato saxna ilaa ma ahan waa arin laga waxaysan karay waa arin aad u adag inaad sacuudi imaaraad la kala safataa horta waa arin aad iyo aad u adag sideedii u adag tahay laakiin haddana aniga waxaa ii muuqda in oo laga maarmay oo aan wax ku khasbayo dowladda positionkaas inay qaadatahay aanay jirin labada dalna ma u malaynayo mid hadda dowladda intii mid cadaad isku saaray oo xagga maxaa saas u tiri xagga saas dheh ee la yiro laakiin dee xoogaa meeshaas waa waxaan isleeyahay fudayda ka dhacay marka la fiiriyo hadda turkiga iyo sacuudiga markay timaado kee is leedahay danta soomaalida marka la fiiriyo ama xiriirka soomaalida waa u dhow yahay oo dowladdu waa ay tahay haddaysa dhexdhexaad ka noqonayn inay walba dhinac u jeesato maya horta dee hal wax lama dafiri karo qof xora oo socoto oo nool in la dilo dee iyadoo wax hadda mowqif oo laisku taageero ama laisku waxay maba ahaba laakiin aniga waxaan qabaa dowladda turkiya aad iyo aaday muhiim noogu tahay kaalmahada ay soomaaliya siisaahay waa mid material ah iyo mid macnawi ah labadaba way leedahay oo dal soomaaliya ay ka maaranta maa dalka keliya ee caalamka oo dhan marka laisku soo celiyo dowladda soomaaliya budget inta siiyey ku shubay yiri waaye qasnadaada sida adiga waxaad priority muhiimad u aragta ku maamul sacuudiguna sidoo kale sameyn ayaguna mararka qaar marka labada in la kala doorto anu ma qabo marna in la wada haayaan qabaa lala wada saaxiibo mid walbana duruufaha gaarka loo sheegto saaxiibtinimadooda iyo walaalnimadooda la haayo haddii mushkilad jirta wax laga xali karana wax laga xaliyo haddaan wax laga xali karana dee principlekii humanitarianka ahayo ahay do no harm waxaa jira haddaadan ka raay karin ha uga darin in la qaato oo meel dhex laga istaagaan qabaanay masantaa madaxweyne waxaa jirta waxaa la yiraahdaa inta badan madaxda markay kursiga fadhiyaan iyo marka ay ka maqan yihiin waxoogaa aragtidooda waa isbedeshaa sida waxyaabaha qayr ay u arkaan haddii maanta dib lagugu celin lahaa xilliga aad xukunka haysa maxaa is leedahay sidii la raba umaadan sameyn ama sida si ka fiicana u sameyn lahayd oo hadda kuu muuqda dabcan in meel soomaaliya oo kale ah way adag tahay mar walba waxaa rabtid inay ka qabsoomaan sida aad u rabtay ay kugu hirgalaan laakiin waa run anagu mistakes waa sameynay with good intentions yani anagoo leh yani niyad sami anagoo ku shaqaynayna waxyaaba qaarkood ay qalad ay u dhaceen waa jiraan waxyaaba qaarkood sida haddaba aan u cabirey aan leeyahay sida loo sameeyey aan anagu u sameynay si ka fiicana loo samey karay aan isleeyahay waa jiraan waxyaaba aan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan qabanay oon ku guuleysanay oon sameynay oo soomaaliyana wax weyn inay u tahay aan qabnaana waa jiraan arrimaha aan hadda aan dhahayey dowladda aan ka hadlayay oo sidii loo handhalgelay ama sidii loo qabtay si ka wanaagsanaa loo qaban karaan islahayaa ka mid ah waxyaaba maanta haddaan noqono aan dib u qaban lahayn waxaan ku qanacsannahay maanta markaan dib u eegnay waddadii aan soo marnay dagaalka shabaab lagula jiraahi ma aha dagaal oo conventional wax afka qalaad lagu yiraahdo dagaal caadi ah ma aha oo military isku hor yimid ay dagaalamayaan
annagu inta badan military isku hor yimid dagaalkood ayaan ku jirnay aan shabaab kula dagaalamayna kaas inuu socdaan rabaa aniga in la joojiyo ma qabo laakiin siyaabo kale oo dagaalka shabaab loo geli karana waa jiray oo anagu aan beri aan ka gaabinay weliba tajribooyin intaan sameynay tajribooyinkoo successful noqday oo guulaystay haddana inaan dhaqan geli weynay marka waxyaabaha aan isleeyahay haddii fursad kale la helo dibaa loogu noqonaya waxaa kamid ah dagaalka shabaaba kamid ah hadda xisbiga ku dhawaaqday musharax ma tahay 2020 mar kale Falastiin waa kugu celinaa waxa waaye xisbigan hadda sameynay registrationkiisa sharciyeyntiisa socoto waxaana asaasayaashuna waxay go'aan ku gaareen 6 bilood oo soo socoto dhismaha xisbiga ila ballaariyo dalka iyo dibadiisaba la waxeeyo bisha Mars ayaan waxaan u balansanahay shirweynihii guud ee shirweynaha qaran ah ee xisbiga uu yeelan lahaa oo dalka Soomaaliya dadka Soomaaliya jooga dadka dibadda jooga isugu imaan doonaan kaasa horta go'aanadu ay inta badan ay ka dhici doonaan haddaa weydiisid shirweynahaas ma ka codsan doontaa inaad murashax noqoto waa ka codsan doonaa laakiin go'aanka weli ayaga iska leh oo qofka allaale iyo qofkii shirweynahaas uu u arko in uu Soomaaliya madaxdeeda xisbiga magaciisa ugu tartamo go'aankaas oo dadweynahaas ay gaaraan uma aniga aqbalaya oo ku soconaya hadii aan yiraahdo waxaa jirta waxyaabo aan bugaagta ku qornayn laakiin la isku sheego ah qofkii mar soo mar labaad ma soo noqdo madaxda markii mar la soo arko inay hadda ma dhacdo inay wareega ku soo laabtaan siyaasadda طبعا hogaamiye dhalinyarana waa طبعا warkaas waa jira laakiin wax badan oo kamid ah waxaas ayaan soo beeninay madaxweyne inuu taramkiisa dhameysto ma dhici jirin oo muxuu ahaay iyo baarlamaankiisa isla socda in xilliga inta dhameystaan baarlamaankiina ka gudbo baarlamaan kale la doorto madaxweynena ka gudbo madaxweyne kale la doorto cadan cabdulle cusmaan xilligiisii taramkiisa wuu dhameystay baarlamaankiisina taramkiisa wuu dhameystay aniga intaan xasuusto maybe haddaanan xusuustayda xumeyn aniga iyo baarlamaankii ila shaqaynayay waxaan ahaynay labada entities intii oo kala samaysay marka taasba haddii ay dhacday madaxweyne inuu soo noqdona way dhici kartaa waxaa jirta xilliga adiga aad madaxweynaha ahayd 3 ra'iisul wasaare dowladda soo martay waxayna kamid tahay waxyaabaha la yiraahdo waqti badan ay ka dhumisay dowladda madaxweyne xasan sheekh oo xilliga ama ololaha noqoto lagu riday ama dhismaha ama consultate wada hadalada lagu noqonayo waqtiga intaba ay qasacdinay dowladda hadda joogtahay muddo aysan madaxda hore soo wada joogin ayay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu soo wada joogeen ma isleedahay dhinacaas waxoogaa yar dowladda maanta jirta ahayd absolutely annaga in aan ra'iisul wasaarayaashii bedelnay wax fiican ma ahayn Soomaaliya dowladda sidoo uma fiicneen laakiin marmarka qaarkood wixii Soomaaliya dowladda sidoo u fiican kaliya ma sameyn kartid marmarka qaarkood waxaan dowladda sidoo u fiicneen ama waana run inuu waqti uu dhumay oo waqti ka dhumay marka waxaan qabaa taas definitely waa xaqiiqo ma dafirayno waqtiga nooga dhumay oo inuu nooga dhumo aanay ahayn waxaa soo haray midda hadda dee madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Hambalyan leh waa fiican yihiin laakiin macnahooda ma inay ayagu fiican yihiin Soomaaliya oo dhamma political soo wada fiicnaatay korowayso dadka korowha baarlamaanka korowha dadka caadiga korowha madaxda korowha Soomaaliya soo fiicnaatay awgeeday ku timiday laakiin muxuu ra'iisul wasaarayaasha shalay iyo ra'iisul wasaaraha maanta inay ku sharax xumaan oo maanta fiican yahay ma laakiin Soomaaliya horumar gaartay oo stage ka soo gaartay waxyaabaha dowladda marka hadda dib loogu noqdo ay dad badan ay dareemaan in qaladaadka ay gashay ay kamid ahayd ma inaad adiga u aragna waa dhici kartaa waxaa kamid ah in gobolka Banaadir xuquuqdiisa ay luntay oo gobolka Banaadir meeshii maamul goboleedyada kale ay maamulo dhisteen gobolka Banaadir aadan xuquuqdaas siinin maxaa arinta gobolka Banaadir waagaas kuugu muuqday fakarkaaga ku aadanaas wax miska bedelay gobolka Banaadir aniga waagaasna waa igu muuqatay haddana wali waa qabaa dadka gobolka Banaadir degan inay xaq u leeyihiin inay maamul sameystaan definitely taas waa right xuquuq waaye lama dafiri karo shalayna waan qabnay maantana waa qabnaa laakiin waxaa jiray caqabado dib u dhig un ma ogi diidme iyo ma aha caqabadahaas dib u dhigayay qaar badan oo kamid ah caqabad siyaasadeed waaye qaarna caqabado farsamo waaye annagu waqtigeenii su-aal taagneed oo aan ka jawaabi kari weynay duruufihii nagu hareereysnay awgoodaa jirto dowlad maamulka gobolka Banaadir dowlad goboleed haddii la dhaho iyo maamul siisu madax banaan haddii la dhaho
iyo dowladda federaalkaasay u wada jirayaan ee u wada joogayaan gobolka banaadir mas'alada oo su-aasha oo u baahan waay haddii hadda gobolka banaadir maamulkiisa madaxdiisa waa la magacaabaa dowladuuna ka tirsan yahay dowladda dhexe uu ka tirsan yahay shalana ka tirsanay haddii maanta marka gobolka banaadir waxa ay xaqa u leeyihin ay qabsadaan dowladduna waajibkeeda ay ka baxdo saacido oy maamul samaystaan oo dad lasoo doortay ay yimaadaan aniga waxaan dareemayaa intayna taas dhicin su-aalo badan oo in laga jawaabo rabo aa jiro oo in laga jawaabo ay tahay haddii aan laga jawaabin maamulka la sameeyana jiritaankiisa ciriiriyo galaa dowladda jiritaankeedana ciriiriyo galaa leanna dowladdan gobolka banaadir ay degan tahay gobolka banaadir ay ka talisaa gobolka banaadir dakhligeeda iyo bajetkeeda inta badan boqolkiiba uu ka yimaadaa haddii maamul lasoo doortay uu yimaado dabcan qarashkaasi dadka gobolka banaadir bixi ayaguna ka maqan yahay waa xaqiiqo laakiin dowladnimada soomaaliya dadka gobolka banaadir wax badan ay usoo sacrifice gareeyaan nolol badan iyo hanti badan iyo wax badana uga baxay inay muddo yar usii adkaystaan aniga waxaan isleeyahay waa qadiyad saxa laakiin xaqay u leeyihiin maalinta nin la doortay gobolka banaadir uu yimaado wuxuu soo istaagaa mowqif ah dalka dhan waa noo dowladda dhexe waa noo dhexaysaa dowlad goboleed kasta waxay dhiibtaan aniguna dhiibaya hala ii badiyo wuxuu imaana aniga hala ii badiyo laakiin waa inaan la dhiibaa dee dowlad goboleedyadana in badanoo kamid a waxba ma dhiibi karaanbo hadday jecel yihiin xataa inay dhiibaan ma dhiibi karaan maanta realitiga xaqaa'iqa maanta taagna marka su-aashaasaa waxay nooga baahan tahay in la xaliyo oo options la sameeyo sidaanaa lagu wada jiri karaa la yiraahdo markaas midka ugu haboono suurtagalka ah oo maanta suurtagalka ah ayadoo berrina lasii horumari doonaa la qaadanaya laakiin annagu fursad umaanaan helin su-aalahaas aan uga jawaabno dowladda hadda jirta laakiin ayadaa laga rabaa hadda ayadaa joogtay inay ka jawaabto inay ku mashquulsan yihiin in kalena anigu hadda xog badan kama hayo ma ogi waxaa jirta in 12 sano ugu dambeysay ay caqabad ka taagneed maamulada dalka soo maray madaxweynihii ka horeeyay adiga iyo madaxweynaha hadda joogaba oo dowladnimadii ay fidi la-daha mararka qaar amniga uu adkaan la-yahay shabaab ay weli ay jiraan magaalooyin ay 12 sano ugu dambeeyay weli ay gacanta ku hayn marna aan laga qaadin dagaaladu amisom markay hadda socoto dhaqaaqda ay haddana dib u soo noqonayso caqabada adiga ku muuqata ee dowladnimada Soomaaliya inay si buuxda u horgasho oo dhulka shabaabka hadda gacanta haystaan gacanta dowladda ay soo gasho maxay yihiin caqabado badan aa jira caqabaduhu kuwa ugu waaweyn haddaan ka soo qaado caqabada ugu weyn oo jirta waxay tahay siyaasadda waay weli waxaan ku guulaysan laanahay inaan soo celino kalsoonidii aan iskula kalsoonaan lahayn oo aan ku dhisi lahayn hay-ado dadka Soomaaliyeed oo dhan ay u arkaan inay ayaga leeyihiin oo ayagu ay maalaan mushkiladda marka taagan mushkilad siyaasadeed waaye haddii mushkiladda siyaasadda la xaliyo constitutionka oo kale muxuu u dhamaystirmi laayahay constitutionka chapterskiisa ama oo topics mawduuciisa waa badan yihiin waxaa laga yaabaa waxa ugu daran oo ilaa 5 ama in ka yar 10 muxuu ahaay qaybood inay yihiin wax ugu muhiimsan ilaa hadda waxaa la heli laayay in consensus technical ma aha arrintu farsamo ma aha waxay u baahan tahay heshiis siyaasadeed u baahan tahay heshiiska siyaasadeed waa kan naga hortaagan ciidan inaan dhisano heshiiska siyaasadeed waa kan naga hortaagan inaan constitution final aan ka dhigno marka meesha waxa yaalo oo dhabta waxay tahay heshiis siyaasadeed la'aan ilaa heshiis siyaasadeed oo dhab ah oo Soomaalida oo dhan ay ku wada qanacsanto la wada ogolaado leelana muxuu ah waxaan way nagu dhibadnaanay inaan sameeyno kaasna waqti qaadana oo hadda biri dambe yani event ma aha yani arin hal mar dhacday oo dhamaatay ma noqonayo wada dheer oo la marayo way wadadii in badan oo kamid waa la soo maray deesan dad u sheegna caqabada waxba iska leedahay laakiin waa lagu socdaa wayna iman doontaa insha Allah dadka ku dhageysanaya kuwa ku daawanayo maxaa fariinaha u diraysaa waxa ugu weyn in ay cabsida inaan iska yarayno dadka Soomaalida dhamaan waa cabsanaan mid dawladda ka cabsanayo iyo mid qabiilka deegaankiisa degan oo reer hebel ka cabsanayo iyo mid ninka in adeerkiisa ka cabsanayo madaxda uu noqdo inuu asigaba uu ku soo jeesto ama booska uu ka qaato cabsida caqabada ugu weyn ee Soomaaliya naas waa cabsida ilaahay aan ku kalsoonaano annaguna aan isku kalsoonaano cabsida aan yarayno dawlad goboleedka dawladda dhexe ka cabsanay dawladda dhexe dawlad goboleedka ka cabsanay madaxweynuhu baarlamaanku ka cabsanaa baarlamaanku madaxweynuhu ka cabsanaa cabsida waa faktorka ugu weyn oo na haysto oon horumar siyaasadeed iyo horumar gicisa kale inaan cabsida yarayno
oo allana ku kalsoonaano annagana isku kalsoonaano leanna qof haddii xataa qof uu waxaad ka cabsanayso uu sameeyo one time waa weligiis ma samayn karo hadduu maanta ku khayaano beri kuma khayaani karo beridaba kuma khayaani karo waanad baratay laakiin inaan fursadba la isi siinin waayo midda taagan dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay alla soo celiyo kalsoonidii cabsidana ha la yareeyo si dowladnimadu ay noogu xoogeysato aada umahadsantahay madax falastiin adaa mudan waa mahadsantahay